gudidii dhexdhexaadinta ka dhexwaday xisbiyada mucaaradka ah iyo xukuumadda Somaliland oo goordhaweed la hadlay warbaahinta ayaa soo saaray go'aamada ay gudidu soo saareen ayaa waxaa ka mid ahaa 1 in la kala diro komishinkii cusbaa ee doorashooyinka 2 in la soo celiyo komishinkii hore ee doorashooyinka sidoo kale gudidu waxa ay xisbiyada mucaaradka ah ugu baaqeen in ay joojiyaan ficil iyo hadal kasta oo ka hor imanaya xukuumadda iyo golayaasha qaranka waxayna yiraahdeen gudigii cusbayd ee komishanka in la kala diro iyaka oo khilaaf la kowsaday 2 in la soo celiyo gudidii hore ee komishanka annagoo ku sababaynay khibradda iyo tababarka ay leeyihiin labadanaba in la waafajiyo shuruucda dalka u yaala 3 jamhuuriyadda Somaliland waxay ku dhisan tahay fulin sharci dejin iyo garsoor xisbiyada mucaaradku waa inay ixtiraamaan oo qadariyaan oo ku kalsoonaadaan madaxweynaha iyo wasiiradiisa golaha guurtida golaha wakiilada iyo maxkamadda sare wax deelqaafana aan loola iman xisbiyada mucaaradka waxaanu kula talinaynaa inay ka waantoobaan oo joojiyaan ficil iyo hadal kasta oo nabadgelyada iyo xasiloonida dalka waxyeelaya qodobadii aan isla gaadhnay hal qodob un baanan idin sheegin qodobkii muddo kordhinta loo kordhiyey baarlamaanada gudidu waxay isla garatay in xukuumadda xisbiyada iyo komishanka cusub ee la soo sameeyaa ka wada hadlaan sida ugu wanaagsan iyo waqtiga ugu habboon ee ummadda reer Somaliland doorasho sugaysaa doorasho loo qaban laana go'aamiyaan waxaan soo jeedinayna waa soo jeedin iyo tala bixin ma aha go'aan amar ah oo waa sida ay go'aamina aanu leenahay ma waa tala soo jeedin kalsooni buuxdana waxaanu ku qabnaa madaxda dalku haday madaxweynaha tahay ku xigeenkiisa wasiirada xukuumadda golayaasha qaranka ay yihiin inay hadal iyo xubno dhamaanba inay codsiga naga aqbalaan iyo soo jeedinteeda kalsooni ay ku qabaan